السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan kuna soo dhawaada YouTube channelka hadaad ku cusubtiin fadlan subscribe ka taabta belkana taabta si idinku soo dhaw waxyaalahan soo gelin doonabo. maanta waxaan idin hayaa Arjun Kapor wuxuu isla socod jireen Salman walaashiisa jaceyl ayaa ka dhaxeeyay wayna kala tageen. maxay u kala tageen Arjun Kapor iyo Salman walaashiisa? sababtoo maxay u kala tageen? Arjun Kapor iyo Arpita Khan Salman walaashiisa labadoodu waxay isku jeclaan. jaceylkooda wuxuu ahaa jaceyl aad iyo aad loo yaqaan Bollywoodka taa laga aqaan. labadoodu waxay isku jeclaan si xad dhaaf ah isku jeclaan Salman walaashiisa iyo Arjun Kapor. balse 2 sano ka bacdi way kala tageen wayna isfahmi waayeen. xiriirkooda wuxuu noqday xiriir isfahan dara ka dhacday. way kala tageen Arjun Kapor iyo Arpita Khan. markay kala tageen Arpita Khan Salman walaashiisa iyo Arjun Kapor wuxuu bilaabay inuu la sheekaysto Malika. Arjun Kapor markuu bilaabay inuu la sheekaysto Malika, Arpita kama xumaanin, laakiinse waxa ka xumaaday famil Khan dhan. way ka xumaadeen familiga Khanka Salman kulli way ka xumaadeen inuu dheedgareeyo Malika, laakiinse Arpita kama xumaanin. sababtoo tahay inay ugu maseerin Arjun Kapor waxa weeye Malika waxay haystaa hadartan 2 ilmo ayay haystaa, nin ayaa qabo, sidaas darteeda ugu maseerin. maxaa yeelay hadartan famil buuxa ayay haysataa. familka Khanka waxay ugu xanaaqeen sababtoo tahay Arbaaz Khan ayaa Malika qab jiray. waxay kala tageen Malika iyo Arbaaz Khan 2016. sidaas darteeda Arjun Kapor markuu la socday Malika way ka xanaaqeen sababtoo tahay markii hore wuxuu dheedgareeyay gabadhooda Arpita ayuu dheedgareeyay, haddana wuxuu dheedgareeyay Arbaaz Khan xaaskiisa hore ayuu dheedgareeyay. familka Khanka hadartan aad iyo aad ay uga careysan yihiin Arjun Kapor. marka hore wuxuu dheedgareeyay Arpita, haddana wuxuu dheedgareeyay Malika Arbaaz Khan xaaskiisa hore. fadlan haddaad ka heshay videogan subscribe igu caawi, like share igu caawi adigoo mahadsan. beelkana taawo siduu kuu soo dhaco videoyaasha aan soo gelin doono mar walbo.